وحوليه عليه الصلاة والسلام قفك الدلي قردر لغو دلي حق در لغو دلي maalinta qiyaamada ayuu wuxuu iimaanaya asagoo ku dhegan qofkii dilay asagoo kalarka ku dhegan madaxana haya markaas uu leeyahay ya rab hada qatalani midkan baa rabbi uu idilay weydii waxa uu ugu dilay markaas baa la kala saaraya wa awwalu ma yuqda yawm alqiyamati bayna an-nas ad-dima soo rasuulku yiri alayhi salatu wasalaam waxa ugu horeeyo maalinta qiyaamada gabadha muslimada waa inay ilaalisaa markay baxayso aadaabta islaamka waa inay ilaalisaa وأنا يكون بحذا إذن وأنا يكون بحذا وأنا إذن كون بحذا قبل ربطين يجوكتوي ما هم مدة ربطين ورقد هذه لسي وحربت سمان وبحيا هذا ترى هذا مدة أصول الله بلود بيجوكس مد وقت يرلو تلقى ليو مدة نك معناها فاكتمركوا عريسية هاي تحريش بيكون سميسة الباب كان فرفور ما يلا هذا فر درجة فرفور ما ي فرق تسد كلا قيبي وكلا جه هذا أدو سيد كان نقطي به شجع القبلية بدل العقيدة قبيلة حوجي أو سراء قاد أيضا هالنقطة عقيدة يا إيمان للرمايو بدل كدين إسلام كأنه بيجو مرخاتبة ديجتهم وحي جار تمرك ننكو إنه يرهدو قبيل كيجان قدمنا يا إنا مصدر قوة وأنا عبادة قبلها وأنا عقيدة قبل كل شيء هذا وقت كان وانا قال له مايا كوانا وانا قال ما يا وحين قال إننا ملء أنت صير بانددي أينو كلا شفك حسنين ومثل بري منا قلبيت هذه من الأركاب ما يعلوك بختنا ولبا مساجد قوبها عامكة وحاصارا واردية شوكتا باصارا مساجد واوين أما قروا كويا لما بوصاصة كويا المقالين كوين كويا لا واردي شوكتا باصارا وأفري لما تنك ساعة صلاة مركز اللي تكن أيوه رقبان أيوه صلاة تكن إنه واردي كجرة والصفك هو تاجر وقري جودي بسطولة يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي وأخواتي في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومؤتمر كي سدح إلى وطنات دلالك إسكندنافيا إيو فنلاند ومانتا وكدع أيو مقالة أوهوس دنمارك مؤتمر كاس أوسوس على سدح إلى وطن سنو حيال بدن أياتكو عرقتين أو علمي أو فوائد بان أكو جيران مركزاتكو حانو كولا طلين لهين إن محاضروين كدب أول لابتان كفايدستان محاضرة مانتا أو محاضرة أفراد يمانين تسدحات وحان عوان كذا ويهي تأثير أي كل هذا الشيعة عالمك يحون كذا محويهي وأنا قيبت اللبات محاضرة وحا سوجي من دون هدي الله إذنه دكتور علي محمد صالح أو إمامك أي خطيبك مجد التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد وحين وذا دقيسني قيبتي كواد محاضرة كهد ليسي الشيعة قيبتا waxaanu xooga saarnay inaanu fahanno waxaanu ku kala duwannahay innaga iyo dadka shiicada ah
innaga markaan leeyahan aan ula jeedo ahlusunnati waljamaaca muxaadaradu waxay xoog saartay qodobada la xiriira caqaa'idkooda maxay aaminsan yihiin qur-aan baa naga wada dhexeeya haddii islaamka aan wada sheeganay qur-aanka maxay ka aaminsan yihiin sunna inaga wada dhexaysa sunnada nebiga siday u arkaan saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ayaa saxaabo inoo wada ah siday u arkaan iyo qodobo kale oo ahamiyaddooda leh iyaga mabaadi u ah sida qodobka la xidhiida rajcada haybada mahdiga muntadarka ah iyo intaa inaha in la mida ayaanu ka soo hadalnay waxay noo rahmanaa laba qodob oo ahamiyaddooda leh oo caqiidadooda la xidhiida wakhtigun uu naga dhammaaday qodobna wuxuu ahaa caqiidata tuqya oo ah ninka shiiciga inaanu ismuujin intuu isqarin karo uu isqariyo ilaa uu madhabkiisa uu ka meel mariyo caqiidatu tuqya oo aanu arki doonno meelaha ay mari doonto qeybta labaadna waa caqiidada loo yaqaan aلطiniya aلطiniya waa maxay waxay yidhaahdeen ilaahi subxaana wa tacaala dadkoo dhan dhoobuu ka wada abuuray waa isla garanoo waa sax haddaba dhoobadu marka laba nooc weeye mid xun iyo mid fiican saabay isugu jiraan haddaba qofka markii xumi uu sameeyo xumi walbo ninka shiiciga uu sameeyo waxay kaga timid dhoobadii isku dhafnayd ee ahlu sunnaha laga abuuray wanaag markuu samayna waxay ka timid dhoobadii wacnayda wanaagsanayd oo ka timid shiicada ka timid halkaa marka ilaahi subxaana wa tacaala waxay ku tuhmayaan cadaalad darra iyo dulmi oo ah haddii qof uu dembi uu galo ama nin shiici uu dembi uu galo maadaama dembigan uu kaga yimid dhoobadii xumayd ee isku dhafanka ahayd oo kaga timid abuurkii kii ahlu sunnaha ahaa dembiga waxaa dusha laga saarayaa ninka ahlu sunnaha haddaba haddii shiiciga uu sinaysto ama dad uu dilo ama wax uu xado dembi walba ee laga goy lahaa waxaa dusha laga saaraya qofka ahlu sunnaha waa alcaqiida aطiniya waxay dhahaan oo masale khatarteeda leh taa markaan ka soo gudbo laba qodob oo kii hore raacsanaa waxaan u gudbayaa ta'hiirka ama saamaynta ay ku leeyihiin alcaalam alislaami waxaan rabaa darsigan inuu noqdo laba qodob qodob taariikhi ah oo dib u raadcaynaya ama inoo celinaya namalcisiinaya taariikhdii waxay ahayd iyo qodob isagu rahman ee taagana oo hadda jira iyo waxa ay markaa ay ka yidhaahdeen dadkii hadda jooga mucaasiriinta mu'arikhiinta adduunka marka dadka la maamulayo waxaa laga maamulaa dhuumo iyagu markaa kala ah dhuunta dhaqaale dhuunta siyaasadeed dhuun iyadoo la xiriirta xagga ijtimaaciga ayaa dadka laga maamulaa haddaba si marka dowladdu ay u noqoto ama caqiidadu ay u noqoto influential mid iyadu wax saamayn karta waxay isku dayeen marka dhuumaha laga maamulo aadanaha inay marka mid walba baroosimaha ay dhigtaan iskuna dayaan inay noqoto wadiiq iyagu keliya ay isbaaradu u taal cid kale aanay marin haddaba waxaan u bixi doonnaa biidn illahi subxana wa tacala dhuumaha ma rabna marka in aanu dib ugu laabana taariikh aad iyo aad u fog maxaa yeelay dhacdooyinkii taariikhiga ahaa ee ka dhacay ciraaq qarnigii afaraad iyo qarnigii shanaad baban la soo koobi karin iska daaye in markaa iyadu markaa laga hadla majaalaadka oo dhan ay taariikhdu marka ay soo martay haddaba culimmadu waxay tilmaameen ahlu iimaanka ahlu taqwa bidcadu meel kasta ay soo gasho inay sabab u noqon karto inay iyadu markaa ay barabixiso jiritaanka ummad iyo dowlad inay iyadu baaba'do ay burburto waxaa sabab u noqon kara bidca haddii ay timaado saa darteed buu leeyahy ibnu taymiya raxmatullaahi caleyh maruu hadlayay wuxuu yidhi dowladii reer bani umaya burburkeedii waxaa ugu wacnaa ninka la dhihi jiray aljacd ee mucatilka ahaa markii ay timid sifadii ah tactiil asmaaءi illahi wa sifaatii markii ay timid oo jacdii ragga la midkaa bahashu ay wadeen fekerkaasu muxuu keenay marka dowladdii bani umaye inay faraha ay ka baxdo haddaba biidn illahi subxaana wa tacaala aan u baxna marka ta'hiirka ama saamaynta iyo nufuudka shiicadu ay ku leedahay caalamka kow dhuunta caqiido kow waa dadkii ugu horreeyey fi taariikh inta la hayo markaanu ka soo tagnay shirkiga nebiga uu la dagaalamay laakiin shirkiyaadkan tirada badan ay dadku maanta ay la yimaadaan waa dadkii ugu horreeyey ay ku soo dhex dabaalay bulshadan maanta ee muslimiinta ah hadday noqon lahayd xitaa qitaac kabiir ahlu sunnaha ah walidaalika in qubuur un lagu mashquulo qofka diintiisu ay noqoto qubuur un inuu dul taagnaado oo masaajiddu ay noqoto mid iyadoo lama tagaana oo laga hijroodo
oo dadku aanay saan dhigin aanay tegin shuqulladan waa shuqullo lagu yaqaan uun keliya nimanka shiicada ah haddaba shuqulkaa waa shuqulkii innaga laynoo soo gudbiyey ama laynagu soo gudbiyey had kale oo firaqda kale oo maanta jirta haddaba wuxuu leeyahay ama culummadu ay tilmaameen in masaajidda laga hijroodo oo dadku meelo kale ay maanta dhan ka hiraagaan ama meelo kale ay maanta ku mashquulaan qubuur unsaa ugu dul dawaafaan shuqulkan waa shuqulkii ay laga keenay nimanka lagu magacaaba shiicada waan u bixi doonaa taariikhdu waxa ay bilaabatay waliyaalika ibn taymiya macnaha soo tilmaamaya nambarka labaad wuxuu yahay inay mar walba ay hor istaagaan wadada khayrka inay dadka ka hor istaagaan waliyaalika maanta waxa inagoo meel kale aynan u fogaan taariikhda si kale aynan u bixin keliya waddankeena markaa dib u laabatid akhbaarta inagaga imanaysa aad bay isu soo taraysaa oo bimacnaa inta xitaa dagaaladan sokeeye aanay bilaaban ba waxay isku dayeen inay madaaris meesha ka sameeyaan dadka maanta qaarkood hubka wata ee dagaalamaya oo laga yaabo dadku magacyo kale inay u haystaan dad waxaa jira iyagu ay tababarteen sida wararku ay nagu soo gaarayaan oo hubkiina gacanta ku sita fakarkii shiicadana xambaarsan hawshana wada maxaa yeelay intii burburka uu socday muddadii dhowr 20 sano ahayd dad waxaa jiray dawlad iiraaniya ay fangarayn jirtay ay koorsooyin ay siin jirtay oo jaamacada laga bixiyey qolyo waxaa jira la xambaaro la geeyey xagga iyo najaf iyo qum iyo meelaha xawsaadka cilmiga ah la soo tababaray baa jira kuwiina maanta waddankay dib kugu soo laabteen marka iyagoo markuu si mutaxan isuna soo mutaxaano meel cilaa ma soo istaagaan laakiin sida madhabkoodu uu yahay madhab tuqyo ah waxay soo maraan dhuun lama arkaan ah oo dadka aan u muuqan intangible ah dhuuntaasu ha noqdo ha yidhaahdeen annaga waxaan soo mareen xarakaadka suufiyada ee jirta aanu soo marno qolyo kale magaco kale iyagu leh wacalaa kullin dadkaasoo tababaran maanta waddankay ku soo laabteen arrinka kale wuxuu yahay caqiidada marka laga hadlayo masaa'isa zandaqada ah zandaqadu qofku waa inuu si muuqata islaamkii afka uga sheegto laakiin waxa uurka ugu jiraayay ay yihiin wax ka duwan wuxuu afka u ka sheeganayo zandaqa lagu magacaabaa zandaqada ay nimankii ismaaciiliyiinta iyo nimankii nusayriyiinta ah iyo niman fara badan oo maanta aad iyo aad u lumay oo firaq iyaga ka mida noqday maxay ku baadiyoobeen تفاسيرتي قرأ الطبرسي تفاسيرتي قرأ الكليني وحي جمعية المجلس في بحار الأنوار كتبتي كلا دونين مساديرته وآيد بعدك مركا مرين هرابي سومال إلا مركا كتورتي هذا مركا عن أركينا مركا dad fara badan lumaya maxaa lagu lumaya hadii day tafsiirku uu noqdo ayad walba timad Ali ibn Abi Talib ay amaanaysa ayad walba timad Abu Bakr bay lacnadaysa ayadan Umar ibn Khattab bay ka soo horjeedaa markaan umada aanu dhex baahino oo duruus iyo muqarrad aanu kaga dhigno haddaba meesha maxaa ka soo baxaya waad garan kartaa adiga markaa dhamaystir waxa kale iyadana muhiim ah inay isku dayeen haddana taariikhdu intay soo jirtay in ay dasiisooyin ay abuuraan iyagoo raba إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى قصة بيان اختراق وحلقوا مقعبة ولذلك إلهي سبحانه وتعالى فنك حديثك وحود دياري الرق يو نوك لشان دي حديثك صحيحة حديثك يساق الدرن هدي لولا الله جل وعلا رقا أن لهيلي لهين ثم رقا أن لهيلي لهين أما أنا إيمان لهين حملة دي يهلكو دي جيدوها سموا لنا رجالكم ورعدة أتكورين إنه الشاقة هدا تايا ينجيري لهين waxaa dhici lahayd maanta in la helo kumanaana xadiisa oo ciida ka badan oo iyagu markaa laga soo buuxiyo kutubta xadiiska ah ee dadka luminaysa laakiin culimadu waxay dhaheen fulanun rumya bitashayyu shiica lagu tuhunsan yahay ama lagu sheegay hebel waa raafidi hebel xadiiskiisa lama qaadan karo ilaahay rag buu soo saaray maxay la diinka kan xifdintiisa إلهي أما وحو كحفظ بعز وحو كحفظنا بأمير أو بإنسان أو بعالم أو بشيخ بأي إنسان إلهي بإلهي وحينا كم تنعمت إلهي سبحانه وتعالى وسي وحيابها عقيدة مركة لمنا أديكسان وحا كميد وحا لغوصة قشانا يا شاتي إنو قفك كان أهل السنة وياهي يضع كوغم مغضى شيخ أهل السنة ayaa waxa laga yaabaa wuxuu ku sheegay inay taa boqolkiiba 99 inta inaga iyaga aanu bimacna inta ahlu sunnaha ay aaminsan yihiin laakiin boqolkiiba hal sida shaydaanka ama kaahinka uu adeegsado ayaa waxa ku jira hal fakar oo noocan qofka tashwiish ku beeri kara fakar ba tashwiish ku beeri kara walaalika maxaa hadda la hayaa youtube-yada waxa ku jira Soomaali Muawiya markay maqlaan balacnad kala dul dhacay waxa ku jira kuwa markay maqlaan Aisha leh naar bay ku jirtaa markii way soo gashay waxaad arkaysaa fakar raqiisa oo shalay isagu soo galeen ah oo shalay inoo yimid oo dakhiil ah oo wali aanan noocan ma lugaha dhulka oo aasan ayaa markii waxaad fahmaysaa in markii uu naga gadnay waxayna ka mid walaalika qofkii dib ugu laabta
taariikhda ninka lagu magacaabo atuuf najmudiin ee qarnigii sideedaad horaantiisii dhintay 716 ninkan dadku waxay aaminsaneen inuu min ahli sunnana ma ahayn haddaba markii dib loo raaco waxyaabaha turaadka cilmiga ah ee ku soo biiriyey ee isagu khariban ee dadka majaraha iyo ama noocan ma ka tuuraya marinka saxda ah marka dib loogu laabto wax la qiyaasi kara ma laakiin culimmadu waa ay ka daba tageen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu toosiyey waxaa ka mid a waxay kaloo ka faa'iidaystaan magacyada isku eg ragga muuqmuuqda ahlu sunnaha ah ee iyagu markaa rugcadayaasha ah ee lagu yaqaan culumta kala duwan ee raggii waaweynaa kutubta aanu ka dhaxalnay raggaa magacyadooda niman u dhigma oo iyagoo kalaa intay adeegsadaan bay fakarkii shiicada waxay u aanaynayaan inuu yahay mid ka soo fulay raggaasoo kale miaal iyaanan fogaanin alimaam aلطabari waa inaad taqaanaan rawaahu ibnu jariir aلطabari tafsiirkii ibnu jariir aad maqlaysaan ibnu jariir aلطabari waa ninka tafsiirka qoray tafsiirkan cilmu riwaayaha ku salaysan waa ninka qoray kutub aad iyo aad u tiro badan oo ka mid ah taariikh aلطabari ninka qora wey ninkaa waxaa jira nin la magaca oo isaga magiciisa magac u dhigan ama la midoo la sami ah ayaa jira ninkaa marka waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray in marka magacaasu intay adeegsadeen wax fara badan meesha ay soo geli miaal haddaanu qaadan maxamed jariir aلطabari ninkaad arkaysaan nin kale waxaa jira lagu magacaabo maxamed ibnu jariir ibnu rustum aلطabari maxay ku kala duwan yihiin rustumka haddaba labadooda marka dib loogu laabtay taariikhdooda labadooda bagdaad bay wada ku noolaayeen labadooda isku casri bay ahaayeen ibnu jariir aلطabari saaxibu tafsiiru ahlu sunnana 310 buu dhintay ninka kan ibnu rustumkan wuxuu dhintay 310 adigu maxaad ku kala duwi lahayd marka waa isku waqti waa bagdaad waa 310 kana ibnu jariir aلطabari kana ibnu jariir aلطabari haddaba marka adiga marka adoo طaalibulcilmi noocan ma aan kala aqoonin manaahijta culimmada kitaabka markaa saa u kala furtid oo aad aragtay ibnu jariir aلطabari baa yidhi markaad maqashid maxaad leedahay waxaad leedahay ibnu jariir aلطabari baa yidhi masalada musallam agteeda wey taa marka waxay keentay ninkii raafidiga ahaa inuu adeegsado ama raafidadu inay adeegsadaan magaca ibnu jariir aلطabari halkaana waxaa ka soo baxay ooraahyo iyo mawaaqif iyo masaa'il fara badan ahlu sunnaha beri ay ka yihiin ibnu jariir aلطabari oo ahlu sunnahana beri uu ka yahay in isaga loo aaneeyey dad fara badan ay ku khaldameen walidaalika waxaa ka mida marka la leeyahay masalada la xiriirta qadiir khum waa kitaab weyne laba mujallad dhaca ninka shiicigaa qora laakiin waxaa loo aaneeyey oo loo tiiriyey ibnu jariir aلطabari waxaa ka mid masalata almasca alkhufayn xitaa innaga jaamicadda markaan dhiganaynay waa la noogu sheekiyey ibnu jariir aلطabarina wuu qabaa ibnu jariir aلطabariga qaba ma aha ibnu jariirkii aanu naqiin maha sunnaha maaha daraase ahaanba xitaa u soo qaadan waxay ka mid tahay masaa'isha culimmada ka hoos bixi jirtay bay ka mid tahay walidaalika wuxuu leeyahy ibnu kaiir raxmat ullaahi calayhi markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay markuu tilmaamaya wuxuu leeyahay wa min alculamaa'i wuxuu leeyahay man yazcum marka wuxuu leeyahay markuu tilmaamaya wuxuu leeyahay dhib weyn baa ka soo gaaray ibnu jariir aلطabariga sunniga ah marka magiciisa la adeegsaday iyadoo lagu khalday nin kaleo raafidiya haddaba markiiba arrinkaas waxa uu dirayaa fariin ah qofka طaalibulcilmi markuu kitaabka uu aqrinayo magacad soomine ninkan laga hadlayo xitaa taariikhda dhalashada iyo taariikhda dhimashada iyo magaca iyo nisbada iyo halka loo aanaynayo intaba hagu kala soomin horta manhajka daraasee manhajkaaba marka wax iftiimin kara waxaa la mida nin kale waxaa jira isagana haddana shiici ah ee lagu magacaabi jiray abu jacfar aلطabari intuu marka waxay ka mid tahay khaladaadka shiicadu ay ka faa'iidaysan jireen wey haddaba waxyaabaha ay la iman jireen waxaa ka mida oo caqiidada xaggooda marka laga hadlayo inay aad iyo aad u faafiyeen fakarka raafidada ah maanta safaaraadka iiraaniga ah ee caalamka intiisa kala duwan ka kala jiraayey waxay isku rogeen halkii safaarad lagu ogaa aslaagta diblomaasiga keliya inay ka shaqayso bay waxay ka shaqeen rafdiga waxa laga shaqeeyaa shiicada sida loo faafin lahaa walidaalika xitaa maraakiista yurub ku taal iyo meelo kala duwan waxaa jirta maalinta sabtida ah ama maalinta khamiista ah ama xilliyadii ay ku beegneed markii thawradii khumeyni ay kacday dadka la soo ururiyaa intaa waxaa la qaybiyaa kutub ay nimanka shiicadu ay leeyihiin waxaa la isku dayey xitaa ducaadii ahlu sunnaha waljamaaca si markaa meel kale loogaga tuuro waxaa la isku dayey in inta la shaqaalaysiiyo la tawdiifiyo howlo iyo lacag inta gacanta loo geliyo kadibna la adeegsado waxayna ka mid tahay waxyaabaha ay samaynayaan wey fi taariikh dhankaa waa markaan ka soo baxo dhanka caqiidiga ah markaan u baxo dhanka siyaasiga ah shiicadu maxay adduunka ay ku samaysay maanta waxay ila tahay walilaahi alxamd in aanay naga qarsoonayn arrinka maanta jira waxay ka dagaalameen taariikhdu intay jirtay
wax lagu magacaabo dowlad islaamiya inaanay coran oo dhalan meelna aanay ka dhalan waxay aaminsan yihiin kitaabkooda waxaa ku qoran waxay leeyihiin waqad madaa bimacnaa waxaa ka mida aqwaashooda waxaa ka mida khilaafo iman karta ma laha bacda khilaafati cali wabnihi اlxusein aw alxasan xasan iyo cali khilaafo ka dambayn karta ma laha bay yidhahdeen hadalladooda waxaa ka mida inay dhaheen kulu raayatin turfacu qabla qiyaami اlqaa'im faصaxibuha طaaguut haddii calan walba dusha la saaro oo bimacnaa la taago amaba la sheego dowlad inay coranayso islaamiya intuu waa baaطil kamana dambayn karta bay yidhaheen cali bn abi aalib mahdi lmuntadar baa ugu soo sokeeya markuu yimaado may dowlad dhalanaysa halkaa marka waxay keentay dad fara badanoon muslimiin ahayn dad fara badanoo dacafatu aliimaana intuu waxay ka faa'iideen masalada iyada maxay ka faa'iideen mar walboo la sheegay inay yidhahdaan maya dowladdii cali bn abi aalib ka dambaysa dowlad ka dambayn karta ima laha ta kale aanu higsanayna iman doonta mustaqbalka la sugayo waxay noqon doontaa oo keliya tan iman doonta markii mahdi lmuntadar u yimaado waxay ka mid tahay asbaabta ay keeneen waxaa kaloo kaaga daran wuxuu leeyahy ibn taymiya iyo shawkani labadaa nin markaad kitaab kutubtooda aqrisid markay shiicada ka warramayaan shiico cagtaada kuma soo dhowaanayso wuxuu leeyahay fitno walba ee caalamka ka dhacday iyo seef walba ee lala dul istaaga dadka ahlu sunnaha iyo dhiig walba ee daatay iyo dulmi walbaba ee loo geysta dadka ahlu sunnaha meel kastay joogaanba markaad dib ugu laabatid waxaa ka dambeeya niman shiica ah bal wuxuu leeyahay markuu tilmaamay mar kale wuxuu yidhi dadka iyagaa ka gaalnimo badan buu leeyay ibn taymiya xukunkuu noo iman doonaaye yuhuudda iyo nasaarada faraha aan ku taagtaagayno kuwaasaa noogu daran buu leeyahay markaasu wuxuu leeyahay taariikhda markuu sii wado wuxuu leeyahay muslimiinta intay soo jireen taariikhdoodana itixaano ahayd lama haya casri ay kaga daraayeen casriga nimanka shiicada marka ay la kowsadeen wey bimacnaa mar kasto ay muslimiintu isku dayeen inay khayr la hinqadaan ay hore u dhaqaaqaan cadowga waxaa garab soo siiya nimanka shiicada kadibna meeshooda marka lagu baabiya taariikhda dib ugu laabo holaako markii uu soo galay turka sham qarnigii toddobaad bartankiisii amaba 658 markuu yimid yaa soo dhoweeyey holaako garab siiye nimanka raafidada taariikhda cadaynaysa ninka kan awowihii ee lagu magacaabo jingiis khan markuu soo galay ee weerarka uu soo qaaday nimanka gacmo furan ku soo dhoweeyey ee ahlu sunnaha madaxa kaga istaagay ee seefaha u afayn jiray ee dhiigga markuu daato markiiba godadka u qori jiray yay ahaayeen nimanka raafidada ay ahaayeen mar kasta oo dagaal uu dhaco oo madaxa isdaraan nimanka nasaarada ah iyo dadka muslimiinta ah throughout the crusaders inta ay jireen xuruubtii saliibiga ahayd inta xuruuba la isaga hor yimid oo dhanba yaa waaya nimanka la safan jiray dadka nasaarada ah ee muslimiinta madaxa hoos ugu dhigi jiray ghaswadii la magac baxday marka la furanayay cagka la furanayay iyo markii la furanayay meesha lagu magacaabo meelo Ghazan marka la furanayay intaba yaa la soo saftay nimanka nasaarada waxa la soo saftay nimanka shiicada la soo saftay bal waxa uu tilmaamay ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi sanadku markuu 570 iyo 97 markuu ahaa oo weer lagu soo qadaa dadka muslimiinta ciidankii muslimiinta way ka baxeen meesha ay joogeen bimacnaa ilan waa laga awood batay libta laga yeeshay waa la baacsaday booska waxaa soo galay nimankan waxaa soo galay leeyahay shiicada maxay sameeyeen marka waxay sameeyeen dadkii muslimiinta intay taxaabeen oo qafaasheen bay seefahana waxay gacanta u geliyeen nimankii nasaarada ahaa halka madax waxa looga kawiyey oo lagu garaacay oo lagu xasuuqay ciduna aanay ka badbaadin illa mimman rahima rabbi nimanka ahlu sunnaha wal jamaa yaa inta sameeyay nimanka ba sameeyay bal inta waa ka sii daran tahay oo أسبابته حكبه ابن تيمية من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديما على بيت المقدس بيت المقدس إن ما أنت قعنت لقده عد شقيسي آديات قدتها كليسي عدوغا يا كدن بي نمك شعادة كدن بيس زد على ذلك وحا انت كلا كسي درتا وتلمام ابن تيمية رحمة الله عليه دولة لما قعب حدا بين بويه أي تاريخ ما إيمان دونته دولة وحا يسوقت تجي شيء كستو كفرية زنديقنمو إسلام لديدو إيجا لغا هيا قرمطنمو إيجا لغا هيا فلسفة إسكا السعودة اعتزال السعودة رفض السعودة ولذلك قرامطته هالكي كسقناتي وحي كسقنات مصر المغرب انت لغا هيا ولذلك التاريخ دي بيقول لابو ما أنت إنه ملك الآذن عراق آد أركيسان بربركا ما أنت مريسو دبابات كي شالي سوق لي ماشا إمركي سدام حسين يددكي سسال لو بعسني dadkii 24 saac TV-yada live waa taariikh aan u soo taagnay 24 saac dadka u gacan haatinay cadawgay ahaayeen nimankii calamada u sidayay ahaayeen
nimankii soo dhoweeyey albaabada u furayay ahayd nimanka ila al'aan maanta ka shaqaynaya yay yihiin ila al'aan taariikh furan wey walidaalika culammadu waxay dhaheen cadow ma jiro ee isagu isku dayay inuu soo dhex jibaaxo deegaan dad muslima ay degan yihiin ilaa waxaa u gacan haatiyey nimanka shiicada taariikh sugan wey bal dib haddaan u laabanna kadib ixsaan ilaahi dhahiir oo nin iyagu ay dileen ah kitaabkiisii cajaa'ibta la waxyaabahu kaga sheekeynaya wuxuu leeyahay meesha maanta loo yaqaan indo bakistan ahaan jirtay oo continent ama qaarad iswadata wuxuu leeyahay bakistan sharqiya mayan goosateen ma goosteen dadka meesha degan aanay ka dambaynin nimanka shiicada ah bal ninka lagu magacaabo qaybta lagu magacaabo qazlabash oo shalay aan soo sharaxnay qoladan cidda ay tahay ayaa yaxya khan markuu gacanta u galay nimankii hunduuska waa ninka ka dambeeyey bakistan sharqiya inay go'do walidaalika waxay ka shaqeeyaan marka muslimiin meesha ay degan yihiin in la kala go'o in mar walbaba ahlu sunnuhu aanay meel isugu iman waxay ka mid tahay waxyaabaha marka la tilmaami karo waxay mar walbaba aad u diidaan markay maqlaan masala tadbiiq ashariica sababtay ugu diidaan waa maxay masalada mutcada darteeda mutcada waan u iman doonaa in yar kadib waa markan ijtimaaciga aanu galno haddaba waxaan rabaa inaan dib idinla laabto laba qodob ahmiyadiisa leh dhacdooyin taariikhiya xus mudan ah qaybna waa fitantii daakhiliga ahayd oo iyagu amaamudeen oo ay sameeyeen iyo midii khaarijiga ahayd markay dowlad ay ku dhawaaqeen labada arrimoodba inaan taabanno labadana waxaan isku dayaynaa haddii rabbi ina waafajiyo inaannu bixinno laba tusaale oo xayi ah oo taariikhdu aad aad u soo xigatay fidnada ugu horraysa waxaa lagu magacaabaa inaannu fahmnana waa muhiim fidnadii la magacbaxday ibn alcalqami alraafidi oo ninkan muxuu ahaa ibn alcalqami alraafidi wuxuu ahaa wasiir wuxuu wasiir u ahaa khaliife cabaasi ee lagu magacaabo almustacsim waxaa la tilmaamaa khaliifa alcabaasi ee almustacsim lagu magacaabo nin ahlu sunna u ahaa maamulkan isagaa haya waa khaliifa laakiin wuxuu nin aad aad u jiljilcan buu ahaa maamul aanan weli karin buu ahaa ninkan wasiirka isagu ah ee gacantiisa midig taaganna wuxuu nin aad aad u kulkulul ee aad aad u adag ninka marka hadaf buu lahaa wuxuu lahaa long term hadaf ah oo aad iyo aad u fog buu lahaa oo ah sida uu maamulka ugaga faramaroojisan lahaa dadka ahlu sunnaha gaarana khaliifaha markaa taagan alcabaasi almustacsim suu meesha ugaga saari lahaa dowla raafidiyana meesha u iman lahayd intaasuu ka shaqeeyey suu marka xaladaa u gaaro wuxuu maray 3 heer oo kala duwan oo taariikhda ku xusan ugu horreyn wuxuu ka bilaabay siduu u tabardarayn lahaa 100,000 gaarayay marka 90,000 laga kala diro awooddaadu intay la ekaan kartaa marka awoodda aad la soo taagnaan kartid oo cadow ay isaga caabin kartid intay la ekaan kartaa awood la sheegi karma marxalada labaad wuxuu sameeyey nimankii tataarka ahaa ee alcaalam alislaami lugta mariyey buu xiriir hoosaad la yeeshay iyagu wax u diri jiray muraasala buu la sameeyey waxaan samaynayna waa nin manoo wasiira oo xukuumadda lagu aaminay ninkan khaliifo in la yidhaahdo unbaa muhiim u ahayd wuu iska seexday barkintiisuu dheeraysay ninkaana hoos ka shaqaysanaya wuxuu leeyahay marka culimmadu ay dhaheen xiriir buu marka la sameeyey wuxuuna bixiyey asraar kala duwan waa dowrkii ay guteen hadda markii sadaam laga takhallusayey nimanka shiicada wasarada u ahaa oo iska dhigayay ummadda markay soo hor istaagaanna mikrofonka hadallada kulul nooga sheegayay hoosna xiriirada ka wato taariikhdu maanta ay sirriyun lilghaaya iyo aljaziira meelaha kala duwanba extreme confidential programmeska loogaga sheekeeyey ka mid tahay maanta wax qarsoomi kara maaha muxuu sameeyey marka nimanka hoos kala xiriiray marxaladda labaad saddexaad muxuu sameeyey wuxuu yidhi wuxuu mariyey alkhaliifa alcabaasi almustacsim in la dagaalanka lala dagaalamay nimanka tataarka ah dagaal aad ba'an inuu noqonayo awood lixaad leh oo nimanka la isaga caabiyaan ciidanka inaanu lahayn haddaba mar haddii arrinku sidaa uu yahay dadka inaan iska dhicin karin hal waddo unbaa noo furan oo ah in aanu 50-50 reconciliation ama heshiis ku salaysan konton aanu horta aanu la galno oo heshiiskaasu muxuu yahay waxaan leenahay wax alla wixii dhulka ciraaq ka soo bax haaf baad leedihiin haaf baa ladin siinayaa haafka kalena khaliifaha iskale heshiiskaas haddaan ula tagna nimanka tataarka waa ina daynayaan waxaanu ku jirnaa waqti ragga inaan iska celin karin iska dhicin karin dagaalku wuu ba'an yahay dagaalna runtii wax miro dhala maaha laga yaabo inagoo dhanba inaanu kulli anno dariiqadaa keliya inoo furan alcabaasi almustacsim markii mashruuca la mariyey mashruuc wuxuu noqday aad aad ugu riyaaqo waa uu soo dhoweeyey wuu marxabaysiiyey maxaa dhacay marka wuxuu yidhi marka waxaan u baahannahay kulan aanu samayno
الخليفة العباسي أو وتتضواب بقول قف أو يسججرة رجي قضاة أها رجي علماء أها رجي فقهاء أها لبانتي أمة الإسلامية أو يسججر رجي حلك أها رجي لصامرتي بلشدة رجي يسوي كد الحناء عجائب جودة رجاب الحشي حتى ما رجي حثالة الناس ما the marginalized ones ما والرجل حلا تضواب بقول إيوه بيوحي هرتجان نينكي تتار قلدي تتار كأها ما حد عاي تاريخنا محي سوحي قتي أنت الدبادة بدك تديك الله ضره عندنا أنا كفيجين ضدكنا أي نقدان ندب إنه فرحة أو نقدان نود بنا الله ضبق علي مالك وحابة بعذي بيدهن علماء مركي تمامي هذا التاريخ وحيلين نمنك يهود النصارى ذو بكبت بعذي أهل السنة إنتي جلين دارتي ابن علقم جلي قال هذا ببت بعذ حتى وحنا كبت بعذين بلين نمنك هاشمين تماشى الجنا عباسيين غير العباسيين كما ينبت بعذين كدي نوحي لصو شرتجن إني ليه نحن هذا آل بيت كجعل وهاشمين ومحاول الله ينسى تاريخنا تاريخ للضفيري كرمها تاريخ من العلقم وحي كم تاريخ ذا منور كأ وانا بال وحي كجدير تاريخ ذا آدي مجدوة تاريخ للضفيري كرمها إننا أهل السنة دانو النهاي تاريخ ذا وما أنت اللي يسيو أما مسكح على لقات ترتره أو أن نقول نولي program people that had the program عسب لقلي إن نقول نحن كم تخلات كانوا قلنا كم تاريخ ذا ويسوغان تهاو marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala masalada iyada habkaas ayaa marka culimada ay ilaahay nagu waafajiyeen culimada marka cadeeyeen marka wuxuu leeyahay ibn al-aqami hadafkiisu muxuu ahaa 14 sano ayaa gacanta midig ee khaliifuhu taagnaa albaabada loo furay nin wuxuu ahaa wax kastaba la siiyey laakiin inta kuma qanacsanayna waxa inta aan ku qufulaa maalin dawladan ahlu sunnaha marun misdaafin karta illa mashruuc marka uu gaaray walidalik waa macnaha uu tilmaamay haddaba waxay isku dayayaan dad iyaga ka mida inay dafiraan raafidada mucaasiriinta wixii xadiidana iyay ma yaan dhicin ragga diiday waxa ka mida oo noocan ma ay tilmaamayaan kutub taariikh maadaama ay sugtay way dafirayaan laakiin ninka aqriya Abu Shama Shahabuddin Abdurrahman ibn Ismaa'il ee 665 dhintay uu ka hadlay wuxuu leeyahay arrinka uu dhacay laakiin iyagu way durayaan waxay leeyihiin ninka dhacdadan soo wariyay Baghdad ba hadda ganaade laakiin markii dhacdadu ay dhacaysay goobta ay dhacdadu ka dhacday goob joog maanu ahayn marka taariikh lama dhageysan karo haye ninka waanu deynay waanu ka tageynaa laakiin maxaanu ka dhihi lahayn Ali ibn Anjab ee la dhihi jiray ibn Sibai marka uu ka hadlay wuxuu leeyahay taariikhda isaga ka hadlay waa nin Shiici Raafidi wuxuu leeyahay istawla at-tatar ala Baghdad nimankii tataarka Baghdad bay gacanta ku dhigeen وقتلوا الخليفة خليفة إيجا دلي الدولة العباسية هل كاسي كجب حذي بوله دولة أرض العراق كدم نوحوا ليه وحنا كدم بي إن دولة دا إذا جلبها رول كالله ديجو إن خليفي العباسي المستعصم إلا الدلي وحا كدم بي بوليه هاي نينك الله ابن العلقمي ابن السباعي ما نجا كان مرك إيجا كان هدي لديه لها وقت يا موسى جوجن تاريخ ولذلك مركز أقول بتد في علم رجالهم وحلو تسكينا طريقان عاديين هذا في تنتا وحكمتها في تنتا أن لا وكرين تاريخ ذا إذا ملك جرت لبا الدولة الصفوية تاريخها هدي أي تأتي داخلي الدولة الصفوية مركز إدارته الدولة الصفوية والدولة دي أسمي الشاه إسماعيل الصفوي وحنا الله تلماما والدولة دي أجوه الرئيسي السي سنجلين oo khasab dadka kaga gaday fakarka shiiciga iyagoo nimankii Iiraaniyiinta xoog marka ku mariyay casriga marka la gaaray waa casri waxay dhahaan historical junction ama tacad waxa bilowday waxay ku magacaan intaaf taariikhi aad isku bedelay baa bilowday waxana bilowday waxyaabaha marka aanan la gaari karino waana waqtigii la isku dayay ama ay aad u bilaabeen in khulafaa ar-rashidiin la caayo waagi hore waxay ahayd ashkuun ku adin baa ahayd hoos baa laga caayi jiray laakiin si calan oo muuqata oo cid kastaba ay maqlayso dhagihiisa ku soo dhici karto marka ay bilaabatay in Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman si calan wadada looga caayo dadka dhan ay maqlaan bal waxa la tilmaamaa xitaa waxa lagu khasbay adigu markaad ceynayso meel kale xitaa hadii agtaada qof uu ku caayo Ali ama waxaan u jeedaa Abu Bakar ama Umar Uthman oo aad dhihi weydid مثلا بيش باد كم باد oo luqada adbrujaniga culimadu dhahay waxa loola jeedaa niyo haddaan u bagay ibis ba markale igu soo celi qofka haduu dhihi waayo waa la dilayaa bay dhahay yani wuxuu soo rogay qodob hadii xataa agtaada lagu caayo Abu Bakar iyo Umar waa inaad dhahdaa igu soo celi aydan kama dhargina waan u baahanahay markale haduu dhihi waayo xitaa dhagta in loo jaro taas waxay ka mid tahay waxyaabaha waliyalika markii uu soo galay Tabriz markii ugu horeysay dawladdu ay soo gashay بالعلماء الله تليان وحي يران ورنيه ماشان أهل سنها كبضا
dagaal hadda inaad ku qaadido tiraahdo caqiidadoon lugta marinayaan way adag tahay yara tartiibsan wuxuu yiri maye waxa iga go'an buu yiri caqiidadan shiicada dadka inaan ka gado cidii diidanana dhiiga dhagto darab buu yiri masalada iyada waa ninkii dawladda Safawiya markay timid ba waxay bilowday waxaan lagu magacaabaa maatimtan maanta aad arkaysaan qabrigii Xuseen inta la isugu yimaado maantana la ooyayo oo marka dadku ay meesha ku ooyayaan waxaynu ku magacaabana maatimta waxa lagu magacaabaa shabiih baa lagu magacaabaa maatimta waxa loola jeedaa meesha la isugu imanaya adwaagii hore wax qarsoon bay ahaan jirto kutubta uu ka arki jirnay laakiin it's world wa global televised dadku dhan maanta way daawadaan wad arkaysaan meesha la isugu imanaya gowda la iska suuraya dhiig baa la daadinaya dawladda Safawiya iyaga tashriiciye masalada iyada bal waxa la isku dayay xitaa nimankii culimada xataa iyagoo afgabaasi ula jeeda ama noocan ma raba inay ma aragtay sambaatiye ka diyaariyaan dawladda iyo khaliifaha ka diyaariyaan ninka iyaga hoggaanka u haya ba waxay isku dayeen inay mariyaan afkaar fara badan bay meesha keeneen waxa bilowda markii waa markii ugu horeysay ee la sharciyeeyay ninka shiiciga markuu sujuuday inuu ku sujuudo ciid turba gaar waatay dhagxaanta ay gacanta ku sitaan Soomaalidan ay u bixiyeen dhagaxlayaal ay u bixiyeen dhagax buu wataa dhulku iska ilaalinaya inuu markaa foodiisa ama wajigiisa uu dhigo ninkii ugu horeeyay masalada sharciyay waxa la tilmaamaa inuu ah ninka lagu magacaabo Sheekhood Cali al-Karki taariikhduna risaalad uu qoray ay markaa ku sharciyay oo at-turba التي يسجد عليها الشيعة وحكى اللي في الرسالة يرى سنة كمركو أها سقال بقول صدني سدحدي السجا الشرعية قف بني آدم إن له سجودي كرا وعنا ربا إنه يرى سلطانه هلجو سجوده السجا وجوه الرئي قرأ الرسالة دي مشهور كأهيد كهل ليس أبو بكر إيو عمر إلا لعنضه وحنا عنوان وقعد كتاب كاللغة مقعبة وليه نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت كتاب كم حاله لجيدا أبو بكر وعمر إلا عايو نكي قريب أهم وحال الشيخ حتى إن لا الشيخ حتى كتاب كان مركي لليه المجلسي يوحل من أفكار تنيك مركا سوق صد ضبال إنويه نمن كم حال الشيخ في التاريخ حتى مركي دجال أي سوق هذين نمن كي برتغاليين تها نمن كي إنجليز كها يجوا ويركوا خلافة دي مركا جرت نمن كي لا صفتي بي هاي هذا أنت صدّن وحي كم يتا وحيابها مركا إتلمامي ولذلك وطن كانت إنه يرادو ابن تيمية فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه قفك استئمان له وحقرش له هأكور قالوا وحا كدعي وقت جيس إيو في تنتفى في سبيله فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة فتنو البوما أنت أولا ليس وهو بعالم الإسلامي ساء كعية وحا كدن بيبهني من الرافضة أيا كدن بيه وهذا الكؤونات المامي دنك وحانو كجد بينا دنك سياسة دنك اجتماعي وصول الله اجتماعيgu waa qofka waxa looga baahan yahay bulshada la degan tahay waxa khasab aad ku tahay dadka wanaajintooda iyo nabad kulanolashahooda waxay kamid tahay qayb nolosha kamid ah ninka shiiciga ah hadii xataa uu kula noolaado intaas oo kun oo sano hadii xitaa inta soo dhaweysay wax alla waxa deysay gacanta aad u galisid waa nin 40 saac ay ku qufulan tahay xiqdigan ah ahlu sunna inuu san arki keenan waan culimadu noo tilmaameen walaalika waxay tilmaameen culimadu waxay leeyihiin kurhiganu kurhi joogta ah way aan kala go' lahayn wa halka uu leeyahay ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi amma ar-rafidhi fala yu'ashiru ahadan illa ista'mala ma'ahu an-nifaq qof kasta uu la dhaqmo nifaq buu kula dhaqmaya biir maxay la diinka uu qalbiga uu ku sita ayaa wuxuu diin baan iyo baan abuuri waxaan loo fadhiin marka ka buux ila uu leeyahay al-imam ash-shawkani markuu hadlay la amanata li rafidiyyin qad ala man khalafahu ma'qul ma nin rafidiyya inuu in laga amaan helo qof kasta ee kaga duwan xagga caqiidada ahlu sunna iyo rag la midka ah hadii ay arkaan nimanka shiicada inay fikirka kaga duwan yihiin waxa isku dayeen marka inay dagaal marka ka bilaabaan ama ay ku bilaabaan waana sida uu tilmaamayo rahmatullahi alayhi ash-shawkani wuxuu leeyahay walidalika wuxuu leeyahay xitaa shawkani taariikhiisu aad bay u dheer tahay waa ninka hadda ka yimid meesha xuufiyiintu iyo ay ku ciyaareen ninka ka yimid wuxuu leeyahay imisaan arkay buu yiri qaar iyaga kamid oo muadiniina oo markaan iskiri ninka kan khayr badana isagoo tuuga la ii keenay imisaan arkay buu leeyahay iyagoo qaar ay ma ah dadka salaada ka bixiye markaan la yaabay taariikhdiisa iyo noocan ma diin wanaagiisa markaan la yaabana aan arkay buu isagoo la imanay falal jirku uu la qamaan dhacoodo jirku la jarricoodo imisaan arkay buu leeyahay inta aan aaminay qofka markaa kadibna saxanka saa noogu rogay wax la qiyaasi kara ma han buu leeyahay waxna kamid tahay hadallada uu tilmaamayo ama mushahadaadka uu tilmaamayo ninka lagu magacaabo al-imam ash-shawkani haddaba in ahlu sunnuhu ay dhaqan wanaagsan iyaga qiray ninba wuxuu u yimid sheekh shuyuuqdooda kamida waa sida Abdullah ibn Kaysan ay wuxuu leeyahay dhul baxan deganahay Faris
nin waxaana beyc mushtara dadkan la dhaqmaa buu yidhi dadka iimana waa laba qolo wey qolana waa qolaan isdiidanna caqiida isku diidanna waa ahlu sunnuhu ka wada laakiin qolyaha wuxuu yidhi macaamulkooda aad buu u macaan yahay si wanaagsan bay ila dhaqmaan beenis dawmarin uguma imaada buu yidhi fii xiin dadka kale aan isku caqiidada nahay ee 24 saac lugooyadeeda ay ka shaqeynayaan maxaan ka sameeyaa buu leeyahay haddaba shahaadadan culimmadu ay soo naqlinayaan waxay muujinaysaa ahlu sunnuhu way dhaqan wanaagsanaayeen walaalika inta ay jireen oo inta hadda aad arkaysaan mar walba negotiationka tirada badan uu socdo inta shiicada iyo marka la weerarayo inta hadallada ka soo bax dadka ahlu sunnuhu aad bay u yiri muhiim maaha waxba laga yaabaa inaanay daneen oo yiraahdaan asal islaami kaliya inay eegaan laakiin qolada iyaga ah inay qodad joojinayaan marka ma walidaalika in yar markaan tilmaamo waxa kamid ninka lagu magacaabo nin shuyuuqdooda kamid ayaa waxa la yiri kashki wuxuu xabsi geliyey 500 oo ahlu sunno xabsi geliyey kadib xabsigu wuxuu xabsi aanan aad u xoog badnayn saanqaafkii waa ku dul habsada ku dul dhacay 500 halkaas ku leedaan uu dhaqaaqay wuxuu u tagay nin culimadooda kamid wuxuu yiri 500 oo nin baan xabsi dhigay 500 oo saabay ku leedaan maxaan ka yeelaa maxaa kafaar guud aan sameeyaa wuxuu yiri niyo haddaad ii iman lahayd intaanu falkan aanu dhicin waxaan ku heli lahaa wadaad kaga baxday macnaa waxba kuma saareen way إلا محور روا مركي إنه عن شورون وإيمان ضنا أو تكس كقاضي لكن مرة هذا إيتي من إذا فلك ودعي وعنديه لا بيقول ميت كسر كم إذا أهل السنة هدنتي شنت بقول اللي إذا مدل بتيس واحد هل أرجع كبي حبيري والتيس خير منهم أرجع أنا كخير بدن بيقول فإذا ما لكن كبي حبيري هذا الكا مركو نك اللي قوم عابه الجزائري وتعليقني وانين شيعي فلان الجزائري اللي قوم عابه وحيري دي ذا تيسكو كهل مركز شيري فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد بير أرق بير نمانك كان أهل السنة دية اللي يبحي ودية التيس بير أرقي دية دي لكن يحر ولا الكود أيقا كلب الصيد أيقا لغو غارصده حتى أمد لغان تبو إلي محايلة كلب الصيد باك دية بضانو لباتن درهم بالغا بحيا بير ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي والمجوسي حتى ولا الكود كوين وحكوضا أهل السنة ولا لهد وحكوضا ونمانك يهود إنمانك مجوسيين wuxuu yiri qolyaha diyadooda 800 bay gaaraysaa oo dirham buu yiri marka waa dad aad u liita buu leeyahay yani bimaana in qof muslim dhiigiisa inta la daadiyo leeyahay diyadaadu han noqoto orgi haddana nin culimadooda kamid u yiraahdo diyada orgiga iyo diyada eyga ugaarta lagu talagala waxa badan diyada eyga markaasuu leeyahay eyga la ugaarsado maadaama ahlu sunnuhu kilaab ay yihiin arag wuxuu leeyahay eygooda la dhashay iyaga la dhashay baa ka diya badan buu leeyahay walaalahood ahlu yuhuudda iyo majuustana way ka diya badan yihiin iyaga waxba maahan buu leeyahay sababta markasta maxaa keena in shiicadu ay yiraahdaan ayna soo xijiyaan xagga yahuudda nasaaradan iyaga ay isxijiyaan waataan ka soo hadalna darsiga ugu dambeeyay nin culimadooda ka mid ah haddana maqaaticda dadku ay mutadaawalka ku jira wuxuu leeyahay annaga haddaan nahay marka laan soo celinaysay masalada oo iftiinto wuxuu leeyahay annaga haddaan nahay shiico ahlu kitaab ma nihi buu leeyahay laakiin muslimiintu ahlu kitaab yahuuduna ahlu kitaab وحين المسلمين أرق أنت قرآن حفظيهم بيري شيخ فلان القارئ أم بيدلدل يا بير القرآن كنت أنا أقول وحيري إنه هرفر لي لبا أيضا مركان شيخ وأسكت دردر يا بير وحما أقان قرآن محفظ سنة بير ليش محل يكون عذاب لي محل أنه أهل كتاب منه أنه هدان نهاي شيعة وحان نهاي بير أهل إنسان أنه أنا بني آدم كان عابدنا علي بن أبي طالب عابدنا مصارضا وحي عابدنا جيسس بي عابدنا عيسى عابدنا قال لي هنا أهل إنسان بنا لها يهود iyo sunnadan waxa la yiraahdaa ahlu kitaab lagu magacaaba waa halka keentay marba in dhanka nasaarada ay maraan laakiin aanay mar hatta mas'alada tathliidka trinity-ga lagu magacaabo adyaanka lagu daraaseeyo nimankii shalay alifay aanay way out u hayn hal aanay u hayn nimanka mubarraadka u sameeyo waxay u badan niman shiica u badan haddaba fitan fara badan oo daakhilina way kiciyeen fitnadii nimankii lagu magacaabo buuhiyiinta nimanka tabcan waa niman aad iyo aad marba ugu howlan dadkana ay ku mashquuliyaan dilkii Xuseen bay ku mashquuliyaan fidnadii ugu horeysay ee isku dhaca ugu horeeyay ahlu sunnaha iyo al-jam'a iyo nimanka shiicada waxay dhacday sanadkii wuxuu dhacay 338 maxay la maqaabirta sanad walbana wad aragtaan marka soo meel isugu yimaado isku dhac baa yimaado
intaaba dhacday qarax baa dhacay waxbaa dhacay waxaasoo dhan iyagaa dadka u sallaxa maxaa yeelay markay arkaan dadka kan oo meesha jooga saxaabadii oo la lacnadayo abubakar oo la lacnadayo cibaado laga dhiganayo cumar lacnadiisa cibaado laga dhiganayo caaisha baqara iyo lo lagu sheegayo zina lagu sheegayo ilaa naarta mukhallad ay tahay mucaawiya ma soo dhawaaba isagu dadka markay arkaan dadku marka isku dhaca halkaas uu ka imanayo fitanta daakhili waxa kamid ah waxaanay ku magacaabaan shayga liberalismka ay u yaqaanaan westernka iyagana agtooda ibaaxiyada ah oo ah waxa lagu magacaabo mutca mutcadu waa guur la magac baxay caariyat alfarj xubinta taranka oo lays amaahinayo guurkaas waa guur waqtiyeysan oo xadidan oo lagu heshiinayo saacad ama 2 saacadood ninka shiiciga ah uma kala saara islaanta ama gabadha uu guursanayo inay zaaniyad ay tahay oo suuqa ku jirto jirkeeda ay beecinayso iyo in la qabo uma kala saarna muhiim waxa ah heshiisku inuu yimaado 2 saacadood 3 saacadood maalin 2 maalmood uu arrinka u dhaco meher ma jiro wali ma jiro sheekh ma jiro shaahid ma jiro labadooda baa soo hor fariisanaya wuxuu leeyahay waa isku ka meheriyay qaarkood waxay aqriyaan suurat al-faatiha sheekadana wa sallallahu ala nabiyina muhammad sheekada meeshaas ku dhamaanaysa oo waxa ka dambeeya marka malaha waliyalika wuxuu leeyahay waxaan la yaabaa marka mar aan noocan Malaysia kuwa aan meel ka wada shaqeynaynay ayaan xusuusta shiicay u badnaayeen maalin walba mid buu guursanaya markaan rooyaa kugu meeri wuxuu leeyahay ani iyada meel fariisano faatixadan aqriyay waxaad hadda igu dul aqrinaysaa ku leeyahay bukhari waxaad ka aqrisay faatixadu aqrinaya hadda waxa laga yaabaa gabadhan uu hor fadhiyo maalintii ugu darneed waxay ahayd naag Australian tourist ah oo ku timid Kuala Lumpur tourist ku timid boorsada dhabar ku sito dabagaabkeeda wadata buu cabaar meel kula sheekaystay iyadoo gabadhan waxay rabtaa in iskala seexda laakiin isaga intay iyadu sheekaynaysa war kama haysa faatixadu aqrinaya faatixada markuu aqriyay kadib luuquu la galay halkaas ku barakeeyay marka waxay ka mid tahay duruqda ay adeegsadaan xataa naagtan inaysan ogeyn baa laga yaabaa xataa waxay leeyihiin fatwada waa fatwo socota waxa laga gedi karaa dumarka ahlu sunnaha hadday yahuudiyad tahay hadday nasraani tahay waxa laga gabadhu iska sheekaynayso iyadii inay niyeysanayso inay zina tahay oo agteeda zina ka tahay laakiin isaga wuxuu leeyahay cibaado uga dhigo waxay ku magac caariyat alfarj ka waran markii fikirkaas lala soo dhax galo dhalinyaro hadda hana qaada nin qaan gaara ee shahwadu ay gubayso markuu nin duub weyn u sharciyay uu yiraahdo tanna waa la seexan kartaa taana waa la seexan kartaa maalinkana adiga awooddaada yaanay ku ciilin 5 meel baad mari kartaa 6 meel baad mari kartaa midiiba 10 daqiiqo la jiifa marka la yiraahdo fikirka soo dadka ka gadbi maayo maxay la ninka kan maxay la halka laga soo galo dhalinyarada waxay tahay min khilaali shahawaatihim qanaadka shahwadiisu la ciyaaraya markaas waxa la mas'alo way sahlanta walidalika waxay sameeyeen xukuumadda Malaysia markay arkeen dumarkan tirada badan ilan Malaysia 97 markaan dib ugu laabtay kaliya 97 hadda ka hadlimaayo ayaa waxa la sheegay 13 dumar ba hal nin baa ku beegan which means يعني عددku aad buu badan yahay 13 marka mid ku beegan yahay hadii laga dhahaba xitaa 4 buu kan guursa 9 kan yaa guursanay niman marka xagga ka yimid Ciraaq ka soo jabay iyo shiica tira badan iyo niman fikirka shiicada laga gado waxa bilowda marka naag subaxina mid qabta duhurkana mid qabta habeenkana mid qabta inin 4 isku maraya 6 isku maraya 7 isku maraya meherna ma laha halkaana waxa ka yimid fawda jinsiya caarima oo aan la qiyaasi kan la xadeyn karin markiiba ragii ugu tunka weynaa ugu muuqday bal xukuuma maxadir maxamed intuuba dhawaaqay xabsiga la wada dhigay jaamacadaha laga wada eriyay haddaba xalka kaliya ee lagu xalin karo maxay mas'aladaas markay na soo gasho da'yartuna ay nagu badan tahay la yiraahdo 5 guur baad maalintii gali kartaa 20 minutes iyadoo zina ay tahay laakiin iyagu magaca ay ku magacaabayaan waa marka kaliya wuxuu gacanta inay ka farabaxayaan zid ala dalik waa dad lacag leh maantana dawladaha ugu lacagta badana markii lacagtana accountkiisa ay buuxsanto jaamacadu raba la geeyo waxa mas'uul waa laga gadi karaa waxayna kamid tahay waxyaabaha adeegsan walaalka alusi wuxuu leeyahay man nadara ila ahwal ar-rafidati fi al-mut'a qofkii u koor gala mut'ada iyo ahwaasheeda nimanka rafidadu ay sameeyaan fi hada zamani la yahtaju fi hukmihim alayhim bizina ila burhan uma baana inuu daliil daydaydo uu ku banaysanayo nimanka kan inay zina ku jiraan macna way cadda markaas wuxuu leeyahay alusi markuu tilmaamay wuxuu leeyahay waxa dhici karta buu leeyahay nin hal haweenay inay ka zinaysato 20 nin ba isku mari kara buu leeyahay fi yawmin wa layl habeen iyo maalin waxa dhici kartana marka in la sameeyay waxay sameeyeen suuqyo waaweyn
oo niman gawaadiin ama jaraariin luqada carabiga gawaad jarar waxa lagu magacaabaa raga ka dhex shaqeeya nimanka inaagaha isku fiksi gareeya xagga bay taagan yihiin gacanta un baa lagu taagay mutcim yar rabtaha waliyalka ninka iyaga kamida ay siiyaan scholarship ee xagga aada dibna ugu soo laabto wuxuu soo laabanayaa isagoo wiil cali wata iyo mid Faatima iyo mid Xasan iyo mid Xuseen afar buu wata garoonka ka soo dagay ma taqaan ninkii maaha maxaa yeelay waxa laga gadayaa dumarka farisiyaadka ah marka wuxuu leeyahay suuq bayba samaysteen oo niman jaraariin ama gawaadiin say dhahaan carabta oo ah isku fiksi gareeya labada ruux say ku kulmi lahaayeen baa laga shaqeeyaa taana waxay ka mid waxyaabaha ay la yimaadeen walidaalika waxay leeyihiin culimadu haddii xataa gabadhu ay diido ma marka qarkii xataa waxaa la adeegsadaa tahdiid waa loo hanjabaa waa loo cagajugleeya haddii laga awood badan yahay waxay ka mid tahay waxyaabaha dhacay ka mid tahay ilaa iyo haddana runtii alfitna alcaarima ay markuu iyagu tilmaamaan walidaalika mithaal bay tilmaamaan waxay leeyihin